السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتا قيمها قايا له مال والبا جوجتان كسو دوادا وبسيتكا سومالي سوفتوير. maanta waxaan baran doonaa cashirkii labaad ee barnaamijka Autoplay. Hadaba barnaamijkan Autoplay aan u adeegsan doono maanta cashirkan ka bixi doono website-ka somalisoftware.blogspot.com waxa weeyaan inaan isku keenno tomaniyo software oo aan ka dhigno hal tool anigoo isticmaalayno barnaamijkan Autoplay. hadaba cashirkii hore ee barnaamijkii oo ka baxayay Somali Software iyo channelka YouTube-ka ee ku leedahay my channel barashada barnaamijka Autoplay. cashirkan waxaan ku baranay cashirkii hore weeyaani waxaa ku baranay laba qaybood oo kala ah sida lagu install gareeyo computerkaaga iyo waliba sida lagu soo download gareysto barnaamijkan Autoplay. waa tahay hadaba barnaamijka ayaan bilaabi doonaa barnaamijka ayaa marka hore soo kacsaneynaa Autoplay sidaan ayuu soo kacayaa qaybo badan ayuu leeyahay. marka aniga new project ayaa rabnaa mid cusub ayaan abuuri doonaa new project marka la fiilalkan ayaa soo baxay waxyaabahan waa sample oo ku diyaarsan samplada marka nooca doontid ayaa ka qaadan kartaa. marka aniga ma rabno sampladan waxaan doonaynaa mid haddi iyo bilaaw ah barnaamij haddi iyo bilaaw ah la bilaabi doono. marka hadayna balaan cusub ayaan abuuri doonaa barnaamij new file menu waxaa dhigi kartaa file menu control in u taagan tahay file menu new ina dheedid ama new projector ina abuuratid. marka projectorkan cusub ayaan abuuranaynaa waa waraqadan cad ayaan dhigi doonaa toman software ayaa hal meel kasoo kacayo oo hal barnaamij ah oo toolbar ah la yiraahdo ayaan u suubi doonaa. daba sidaan u suubi karnaa marka hore sidaan marka aragtid Autoplay sidaan u soo kaco oo file menu-ga oo new dheedid projectorkiisa ku soo kaco waxa rabtaa horta marka hore waxaa suubinaysaa design ayaad u suubanaysaa. designka hadaba sidee aad u suubi kartaa? koowaad waxaa u baahan tahay warqadan cad ayay ku cajibo galiyayso. waxaa la rabaa Photoshop in wax ku soo diyaarsatid ama sawiro kale ayaad gali kartaa. sadarteed marka waxaa rabnaa aniga picture ayaan iska gali doonaa. picture kamid ah ayaan soo qaadan doonaa oo computerkeena ku jiro. waxaa qaadan doonaa kan automatically u jeedaan uu soo galiyay picture aad iyo aad u qurux badan. marka waxaa rabnaa inaan designkii aan bilowno kan ayaan dooranaynaa kan waxaan ka dhigaynaa ilaa 3 control D waa badseena control D badsi waaye designkan ayaa saan quruxseena. waa tahay design ayaa abuuranay godadkii oo softwarada gali lahaayeen. inta waxaa ka dhigana 3 inta waxaa dhigana 3 waa 6 halkaana waxaa dhiganay 4 xabo. tobankan god ayaa rabnaa inaan gelino mid walba software. hadaba sidaan u gali karnaa oo tool uga dhigi karnaa? hadaba marka barnaamijkan uu subsan yahay hada preview dhaho sidaan ayuu soo kacaya canjaladaya halahan ayaa qarsan waa hagaag waa design garaynay designkina waa toosinay. marka waxaa u baahan nahay click here meesha ku qoran tahay god walba oo tobankan god ah inaan gelino mid walba software iyo mid walba software gooni ah inaan gelino oo adhooti. marka toolkan waxaa waaye tusaale ma ahan tool oo public ah ma ahan waa tool tusaale oo ardayda Somali Software Bega ku xiran iyo channelka Somali Software ku xiran oo loo diyaariyay. waa tahay marka hore waxaan soo kacsanaynaa folderkan oo tusaale aan ku qoray folderkan ayaan soo kacsanaynaa. waxaa rabnaa barnaamijka waa kana folderkan waa kana. marka waxaa rabnaa hoos dhig waxaa u korayo Microsoft Office magaciisa kore ayaan soo qaadan doonaa. kan ayaan click sii doonaa laba jeer aan click siinayna click here meesha ku qorta Microsoft Office ayaan gali doonaa kadibna okay waxaa soo baxay Microsoft Office. farta way ka weyn tahay farta waa yaray kartaa funti adeesa kadib 15 waay waxa ka dhigaysaa 11 click kadibna farta sideed ku daa kadibna okay macquul waay meesha loo ekaada. okay waxaan rabnaa kan labaad aan ka dhigano Microsoft Office 2003 soo copy garay
kadib laba jeer click sii kadib okay leh 2003 okay kan ku xigo waxa waaye 2007 office 2007 waxaan rabnaa marka laba jeer click sii kadib okay kan click sii inta click sii waxaan dhiban 10 waxaa soo geliyay office 2016 2003 2007 2009 mid kale ayaan soo geli doonaa 13 ayaan soo geli doonaa 2013 inta ayaan saari doonaa isigana okay kan waxaan kulli magacyadaan bedelo doonaa aniga marka magacyada bedelano kadib ayaan wax ku qori soo geli doonaa software-ada Adobe Reader ayaan midka kale ka dhiga Adobe Reader kan click sii kadibna kan waxaan ka dhigtaa QQ Player QQ Player okay saddexdaan dhiman Skype VLC Player okay designkii waan design garaynay magacyana waa ku qoranay haddaba marka waxaan rabnaa software-ada inaan soo gelino mid walba waxaa suubi kartaa directly kan ayaa click aad siisid kadib halkaan tagtid halka quick action kadib meeshaan filatan ku qoran tahay furtid kadib dheedid run program soo gelay programka taas waa laga fiican yahay waxaa ka fiican inaad suubisid dragging inaad qabatid kan oo soo jiidid dab dheedid kadib office 2016 gudaa waxaan ku soo qoray ay meeshaan masoo gelinaa masoo geliyaa software-kii aad drag ku soo suubisay soo geliyaa yes ama no yes u taagan ha no u taagan maya okay yes waan geliyay kaas automatical oo galaya 2003 aan tala qabanaa waa gelinaa waa geliyay 2007 2010 2013 waa tahay ofisiyadii dhan waa dhameynay waa gelgeliyay marka waxaa dhiman kuwaan kale Adobe Reader oo galay QQ Player oo qaatay taka keen bay Skype oo qaatay TeamView oo qaatay VLC oo qaatay okay automatical software-da waan geliyay marka waxaan rabaa software-di waa geliyay waxa u baahanaa marka inaan inta aan save gareyn waxaan rabaa software qaab u soo kacayo inaan arko review markaan dhaho kadib continue automatical saan ayuu soo kacayaa midka click siiyo 2003 click siiyo hada QQ Player click siiyo okay sidaan ayuu soo kacaa marka waxaan rabaa software programki waa subsaday 10 software ayaa isku keenay hal mid kamid ah ayaa isku geeyay 10 software waaye ay hal toolbox ah u suubiyay marka waxaan rabaa toolboxkan inaan musico ama nashiido ama hees inaan dhex dhigo meeshaan marka inbox ayaan soo qaadanayaa boxkan kana ka qaadanayaa inta noo yaray play ku qoraa play markaa ku qoro waxaa rabaa musico inuu ku diyaarsantaa ama nashiido marka waxaa rabaa
mid kamid ah nashiido ayaan qaadan doonaa inboxkii waan meeshaan wax ku suubiyay play ayaa ku qoran marka waxaan rabaa in aan nashiido aan ka dhageysto bal inta aan save gareyn waxaan rabaa marka hore in aan dhaho preview software-kan soo guuleystay mase wax waan ku guuleystay qaabka design ku soo kacay beero ay nashiidadii baan ayaa rabaa وطهي عادي عادي وفي عينها مركب برامج كينا سادرتي مركب حرارة إنا سيف قريو سيدان تو سيف قرينا سا ماشا سياكل ماشا ياكل سينا ساكت كونتينيو يا لهنا وحررنا إنا سيدا سيف قريسا بهاي ديسك كتب كاسا درنا نغستي هل كي ديانا سا يو كلها وفرنا حد ديانا وحد ديانا ديسك توب waxaan ka dhiga doonaa desktop tusaale ayaa kasii dhigi doonaa okay tusaale ayaa dhiganay magacan u baxsan doona waxa waaye tusaale sababtan u baxina waxa waaye example ayaan ka rabaa waa wax example ah billing yes asaf grasma save garasna kadib programkii ayaan soo qaadsan doonaa oo dhameeyay watahay oo dhameeyay barnaamijkii save garanti close ayaan dhaheena automatical oo soo kacay marka cancel naga dheh kana noo soo jeedi minimas naga dheh tusaale ayaan gelinay soo kici tusaale waa kana barnaamijkii waa kana waxa ku qoran tusaale marka waxaan rabaa inaan soo kiciyo right click open ama laba jeer click si automatical oo soo kacay barnaamijkii marka waxaan rabaa mid kamid ah taan kalixi automatical computerkeyga oo ku shubmaa marka waxaan rabaa key player ayaa kalixina hay hada Adobe Reader-na kalixina automatical oo ku shubmaa hada office kamid ah mid kamid ah office ata kalixina automatical oo soo kaca office ku shubo ku dhaha waxaan rabaa muusikada ina dhageysta rabaa bal yaa dhaha واتاي سيدا سايو ديغيسا كرتا برامجكا سيدان واي تمانية software إنا اسكو كينتid hal meel oo magac u bixisid toolbar aad dhehidid toolbar ka sadal magac u bixisid marka waxa iga maqan aniga haysiin ina inta meelahan galiyo software marka si fiican u design gareynaysid waayo waxa ugu baahan tahay marka aniga waxaan rabnay mid trial ah oo bulshada Soomaaliyeed wax ku bartaan ayaa rabay barnaamijka waxa taabagelinayay farmashiyaha Banaadir waxa soo saaray barnaamijka sida Umar Cabdullaahi Daacad waxaana tabinayay aniga Maxamed Abuukar Cabdiqaadir Maxamuud inta barnaamijyo aan kan oo kale aan ku kulmi doono sidaas iyo amaana Allah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh